Hal arrin oo ay gabadhan yar samaysay ayaa geeri ka badbaadisay qoyskeeda oo dhan. Haddaba muxuu yahay arrinkaasi? Nala daawo qisadan. Hale Catiiq waxay ahayd gabar yar oo 13 jir ah oo u dhalatay dalka Suuriya. Sanadkii 1955 ayuu aabaheed go'aansaday in isaga iyo qoyskiisuba u guuraan dalka Mareykanka. Qoysku wuxuu ka koobnaa Catiiq, xaaskiisa iyo 3 gabdhood oo ay dhaleen oo ay Hale ugu yar tahay. Diyaaradii ay soo raaceen waxay caga dhigatay magaalada New York ee dalka Mareykanka, balse iyagu waxay rabeen inay u sii gudbaan gobolka California oo ah meesha ay rabeen inay degaan. Markii ay ka degeen garoonka New York, ayaa hooyadii iyo 3 gabdhood laga dalbaday inay xijaabka iska bixiyaan si sawir looga qaado kadibna loogu dhajiyo kaarka cagaaran ee green card-ka. Hooyadu markii hore way ka cagajiiday, balse markii dambe waa ay ogolaatay. Gabadhii ugu weyneed gabdhaheeda iyadana way ogolaatay in sawir laga qaado xijaab la'aan. Gabadhii labaad ayaa iyadana sidoo kale ogolaatay. Kadib waxaa la soo gaaray gabadhii reerka ugu yareed ee Hale Catiiq. Markii la yiri xijaabka iska bixi, waa ay diiday. Wax badan ayay shaqaalihii garoonka isku dayeen inay gabadha yar ku qanciyaan inay xijaabka iska siibto si sawir looga qaado, balse go'aankeedii ayay ku adkaysatay. Waxay bilaabeen inay ugu hanjabaan inay dalkeeda Suuriya ku celin doonaan haddii ay ogolaan weydo in xijaabka ay iska bixiso. Hale waxaas oo dhan dhag jalaq uma aysan siin. Ugu dambeyn waxay go'aansadeen in iyadoo xijaabkeeda wadata sawirka laga qaado. Sidii baana la yeelay oo sawirkii looga qaaday laguna siiyay kaarka cagaaran ee green card. Waxay noqotay gabadhii ugu horreysay ee green card-ka Mareykanka sawirkeeda lagu dhajiyo iyada oo xijaaban. Diyaaradii ay rabeen inay raacaan ee California u socotay ayaa la sheegay inay ka tagtay maadaama ay soo habsaameen. Saacado kadib waxay warbaahinta ka maqleen inay burburtay diyaaradii u socotay California ee ay markii hore rabeen inay raacaan. Hale ayaa tiri fadliga Ilaahay iyo xijaabka aan diiday inaan iska bixiyo ayuu Ilaahay nooga badbaadiyay geeri. Haddii aad ka heshay qisadan, subscribe saar YouTube-keena Shakila Media oo nagu soo biir mahadsanid.